hay'adda Somcare Germany ee fadhigeedu yahay dalka Jarmalka ayaa qalab cisbitaal oo laba kutaanar ka kooban u diray deegaamada Puntland kuwaas oo loogu talagalay cisbitaalka guud ee magaalada Garowe iyo cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka oo hadda dhismihiisu ka socdo isla halkaasi. Goobta qalabka lagu rarayay oo goobjoog ka ahaayeen cisbitaalka ku deeqay qalabkani ee Bretten ee ku yaala dalka Jarmalka agaasimihiisa haweeneyda lagu magacaabo Ritzman iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay hay'adda Somcare Germany oo inta badan qalabkani iyo waliba mashaariic hore uga qabtay deegaamada Puntland. Injineer Maxamed Cabdiraxmaan waa gudoomiyaha hay'adda Somcare Germany oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyay cisbitaalka Bretten oo qalabkan ugu deeqay cisbitaalka guud ee magaalada Garowe iyo cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Xaawa Cabdikuro iyaduna goobta joogtay isla markaasna qayb ka ahayd guddiga sare ee gacanta ku haya cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee ka socda magaalada Garowe qalabkaana uu qayb ka yahay. anigoo ku hadlaya magaca hay'adda Somcare Germany inaanu qalab caafimaad oo aad u fara badan isla markaana gaaraya 150 shay aanu dalkii hooyo u dirno qalabkaasi oo noogu deeqay isbitaalka magaalada Bretten oo aanu jaalnahay aad iyo aad ayay noo farxad gelinaysaa isla markaana waxaan farxadda la wadaagaynaa hooyada iyo dhallaanka dhisaya isbitaalka weyn ka dhisaya magaalada Garowe waan ka mahad celinaynaa insha Allah waxaanu anaguna rajaynaynaa inaanu noqono kuwa ka faa'iideysta oo hay'adina siisayna uga soo mahad celiya iyo Maxamed oo maaragtay qoladii hadda nagu wareejisay waxaan kala wareegnay qalabka sariiraha iyo jodariyaal iyo qalab isbitaal oo dhameystiran gobolka Nugaal ba iska leh anaga urka gol Nugaal qayb uu leeyahay gobolka Nugaalna guud ahaan qayb ay leeyihiin isbitaalka Garowe iyo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka oo anagu ka socono aad baan ugu mahad celinaynaa dadkina siiyay runtii baahidayada. Agaasimaha isbitaalka Bretten haweeneyda lagu magacaabo Ritzman oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa uga mahad celisay hay'adda Somcare Germany barnaamijyada mutadawacnimada ay ka qabtaan dalka Soomaaliya. Sehr, sehr froh, dass sie jetzt noch mal verwendet werden können und jetzt gerade bei Ihnen in Somalia. Also ich finde ganz toll und vor allem finde ich auch sehr gut, dass es Leute gibt, die das Ganze organisieren. Wir sind ja nur die, die es geben, aber die Organisation, das ist ja das Wichtigste. Also vielen Dank, dass Sie das jetzt auch von uns jetzt nehmen und wiederverwenden können. Vielen herzlichen Dank. Si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay hay'adda Somcare Germany ee mashaariic noocan oo kale ah oo si lacag la'aan ah ay uga qabtaan deegaamada Soomaalida gaar ahaan Puntland. Hay'adda ayaa sidoo kale sanadkan gudihiisa waxay u fidisay qalliin lacag la'aan in ka badan 100 qof oo dhanka faruuryaha ah. Cabdinaasir Yaasiin, SBC, Germany.